Kusoo dhawaada Alio Propolis Cream. Waa cream ka samaysan malab iyo dacar. Kaasoo ka caawinaya dhiig roorka ama bilalka hadba sida u taqaanaan. Sidoo kale waxyaabo fara badan buu daweeyaa cream kan. Waxaa ka mid ah waxyaabaha uu daweeyo cambaarta. Sidoo kale qawadka. Sidoo kale madmadowga uu ka tago finanka. Finkii meeshii uu ka soo baxay ama qofkii waxaba siisay aloe vera jelly baa siisay. Propolis markaa kama maarmaan wey laga maarmaan wey. Maxaa yeelay madmadowgii buu ka baabiinaya markaa alaabo waa la isugu daraa qofka. Propoliska iyo cream kan waa la isugu daraa wada qaataa si maarta madmadowgii finankii oo meesha uga baxaan. Runtii waa cream aad u wanaagsan. Hadhkii madmadowgii dhammaan intaba uu ka qaadayaa. Cambaarta soo noqnoqotana aad buu u wanaagsan yahay. Maasha Allah. Dadka maartay qorraxda uu dhibto oo kaleeto guduudka ku yeesha. Aad buu isna ugu wanaagsan yahay oo jirkoodu uusan xamili karin falaarta qorraxda. Maasha Allah wuxuu ka samaysan yahay dacar iyo malab. Wuxuuna jirka siinayaa maarta moisturizing ama uu duxaynayaa. Qalaylkii badnaana uu ka baabiinayaa. Wuxuuna ka samaysan yahay labadaas maado. Waxyaabaha uu aad maaragtay u caawiyo waxaa ka mid ah cambaarta. Finanka ayaga ruuxooda laga maarmaan wey inaad la siisid aloe vera jelly laakiin wuu u fiican yahay madmadowga iyo waxyaabaha noocaas. Skin problems ko dhan waa loo qaataa. Gubashada fudud oo kaleetana qofka waa loo siiyaa. Cambaartaas oo kaleeto waa loo qaataa. Adiga waxyaabaha problems skin ka xataa wajiga maahan meelaha kaleeto waa loo qaataa. Vitamins iyo waxyaabaha isku kubiyay dacarta iyo malabka. Ilaa 3 beri ilaa 7 beri meelaha suuq qofku ku ogaan karaa. Markaa Alio Propolis qaabka loo qaato waxa weeye qofkii marka koowaad wajigiisa wuxuu ku mayrayaa saabuun. Saabunta avocado face and soap buu ku mayrayaa wajiga markuu ku mayro. Wuxuu samaynayaa wajiga wuu qallajinayaa. Kadibna wuu marinayaa. Hadduusan wajiga ahayn saas oo kaleeto buu la macaamilayaa. Qorraxda ama dabka oo kaleeto qofku uu ka fogaanayaa. Inta ay u marsan tahay jawi caadi oo kaleeto ku marsanayaa. Si uusan ugu dhididin ama uusan kulayl ugu dareemin. Markaa insha Allah laba waqti oo kaleeto qofka hadii isticmaalo waa ku filan yahay Masha Allah wey. Hadduu hal waqti kaliya u helo habeenkii si joogta ah uu isticmaalana waa okay. Laakiin muhiimadu waxa way inaan la kala goyn meelaha laga ilaaliyo kulaylka iyo qorraxda iyo kaleetan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.